assalaamu calaykum dhammaan saaxiibada channelka ku xiran marar badan oo badan sida ay qorayso taariikhda wuxuu bini'aadamka sheegi jiray in dunida ay dhammaad tahay gaar ahaan markaad eegto dadkii aaminsanaa khuraafaadka iyo qiyaaliga kuwaas oo ka qiyaas qaadan jiray haddii ay dhacdo dhacdooyin dabiici ah oo xagga alle ka yimid oo aysan horay u arag ama u maqal waxay dadkaasi markiiba sheegi jireen in xilliga dhicista qiyaamaha la joogo ama ay ka harsan tahay maalmo kooban oo caddadooda la yaqaan sida marar badanba horay u dhacday siday aaminsanaayeen qurumihii tegey iyo kuwa aaminsan waxa loo yaqaan apocalypse oo ah in dunida ay dhammaanayso waa sida ku xusan baybalada qaarkood marka uu bini'aadamka la kulmo xaalado adag oo qalafsan sida cudurka safmarka ku maraya dunida dhowaanahan oo adduunkii oo dhan kala xiray waxay bini'aadamka u tahay xaalad ku cusub oo aan fariir ku riday walwalna badan ka gelisay sii jiritaankiisii xagga nolosha xaaladdii bushiga oo taagnayd ayaa haddana waxaa ugu darsantay in loo sheegay bini'aadamka daciifka ah in dhagax weyn uu ku soo dhacayo ama uu ku soo dhowaanayo dunida aynu ku noolnahay midkaasi oo ka imaanaya xagga meerayaasha sare sida ay sheegayaan dhagaxaasi wuxuu halis ku yahay jiritaanka bini'aadamka iyo dunida oo dhan waa sida ay isku jiibinayaan waxaa markiiba arrintaasi lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta reer galbeedka iyaga oo sheegaya in 29 bishan Abriil 2020 uu dhagaxaasi ku soo dhowaan doono ama uu ku dhici doono dunida meel ka mid ah waa sida laga soo xigtay ama la sheegayo inay soo warisay hay'adda Mareykanka uu qaabilsan arrimaha xidigiska iyo meerayaasha sare ee loo yaqaan NASA markaad si dhab ah u baarto jiritaanka warkaasi waxaa baahiyey wargeys ka soo baxay UK oo lagu magacaabo Daily Express midkaas oo sanad waliba xiliyadan qora arrimaha noocaasi ah si ugu macaasho Daily Express waxay shabakadeeda internetka ku daabacday in dhagax weyn uu aad ugu soo dhowaan doono dunida laakiin taas beddelkeeda waxay barteeda Twitterka ku daabacday maalin cayiman oo ah 29 bisha Abriil in dhagaxaasi uu dunida burburin doono iyada oo taas ula jeeda si ay u hesho dad badan oo booqda website-keeda Daily Express qaar badan oo inaga mid ah ayaa markiiba rumaystay haddii uu dhagaxaasi ku soo dhaco dunida ay jiritaanka bini'aadamka qarka u saaran tahay inay baaba'ayso middaasi oo ka dhigaysa inay rumoobayso filmadii horey looga sameeyey dhagaxaasi hawada sare ka imaanayay ee sababaya in qiyaamaha uu dhacayo maalintaasi waxay ku andacoonayaan haddii uu dhagaxaasi soo dhaco inuu baabi'in doono dadka iyo dunyada gaar ahaan siday horay u sheegeenba in dhagaxaasi uu cirib tiray noolaha loo yaqaano dinosaurka bal meel inoo dhiga dhagaxan la sheegayo jiritaankiisa waa arrin kale oo mawduuc gaar ah u baahan maxaase ka jira haddii uu dhagaxani dunida ku soo dhaco ay dhacayso qiyaamaha waa arrin kaloo cajiib ah waa jaahilnimo aan sal lahayn waa khuraafaad baarkeena la qabasiiyey haddii dhagax soo dhacayo lagu ogaan karo xilliga qiyaamaha uu dhacaya in la taagan yahay ama ay ku cabsigelinayso dhagaxaasi inuu sabab u noqon doono xilliga qiyaamaha uu fuli lahaa dhicista qiyaamaha rasuulkeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ma ogeyn loomana sheegin iska daaya nebiga alle malaa'igta ka agdhow alle carshigiisa uu sitaa lama socdaan xilliga qiyaamaha uu dhici lahaa ama uu fulayo bini'aadamku wuxuu jecel yahay inuu wax walba ogaado wuxuu jecel yahay in xadka iyo xawaaraha uu dhaafo wuxuu jecel yahay in xuduudihii alle ugu talagalay uu kaga tilaabo si ka baxsan intuu alle u cayimay oo aqoon iyo camalba ah yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد kuwa aan rumaysnayn waxa dhexdeeda ah waa qiyaamaha waxay dalbaan in la soo dedejiyo dhicista qiyaamaha halka kuwa rumaysanna ay ka baqaan iyada qiyaamaha ah oo waxay og yihiin inay tahay xaqiiqdii kuwa ku dooda waxa ku saabsan saacadda qiyaamaha waxay hubaashii ku jiraan baadi aad u fog haddaba dhicista qiyaamaha waxa ogsoon rabbiga uumanka oo dhan dhagax cirka dig ka soo yiri ama duumo dar Allaahi u soo degtay ma ahan astaamihii qiyaamaha horey noolagu sii ishaaray